السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود الكسور دواد ورقي عياره بولشة سبورت وعنو حسن عمر حسين قضبضا نهاية وحا كمد رومايا ديرد او سارن دلب كماتيز فينا أرسنال يا قوان كغارسة مستقبل كسيرجينو ديستي أرسنال يا ولي رجاك للدلب كمالويل لوكاتولي مان سيتا يا اسكفا صحيسة حدي جيجا يانجل هيريرا intaas waxay qodobadii wararka hadana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Roma ayaa diirada u saaran dalabka Matheus Vina qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed kooxda Roma ayaa u aragtay difaaca Palmeiras ee Matheus Vina inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga xagaagan Roma ayaa raadinaysa 23 jirkan bedelka Leonardo Spinazzola oo dhaawac halis ah ka soo gaaray tartankii Euro 2020 maamulka Roma ayaa isku diyaarinaysa inay ka gudbiso dalab gaaraya 13 milyan ay ku doonayso Matheus Vina waxayna rajeynayaan inay heshiiska ugu dambeeyo ku xoojiyaan isbuucan soo socdo Arsenal ayaa go'aan ka gaaraysa mustaqbalka Sergio Desti qodobkaasi waxa eegaysa Muna Cismaan Arsenal ayaa ka niyad jabsan rabitaankooda ku aadan saxiixa laacibka ka tirsan kooxda Barcelona ee Sergio Dest marka ay sheegtay in Sergio Dest uu go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa kooxda Catalonia laacibka heerka caalamiga ee dalka Mareykanka ayaa bartilmaameed muhiim u ah tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta Arsenal ayaa ku dhow inay lumiso difaaceeda Hector Bellerin oo doonaya inuu helo tartan cusub oo ka baxsan horyaalka Premier League Sergio ayaa go'aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Barcelona xilli ciyaareedkan Arsenal ayaa wali rajo kala dalabka Manuel Locatelli qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar kooxda Arsenal ayaa diyaar u ah inay bixiso qiimo gaaraya 34 milyan siday wararku sheegayaan 23 jirkan ayaa xiiso ka helay dhamaadka horyaalada Yurub kadib qab ciyaareedkiisii fiicnaa ee xulka Talyaaniga ciyaarihii Euro 2020 laakiin Sassuolo ayaa diidan in lacag lagu helo xidigooda oo shakhsiyadeed oo doonaya inuu u dhaqaaqo kooxda Juventus saxaafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano ayaa barta Twitterka ku soo qoraya in Juventus ay hogaaminayso loolanka loogu jiro Locatelli xilli ciyaareedkan Arsenal ayaa diyaar u ah inay bixiyaan qiimaha kooxda Sassuolo doonaya laacibkan oo gaaraya 40 milyan Man City ayaa iska fasaxaysa xidigeega Yangel Herrera qodobkaasi waxa eegaysa Muna Cismaan kooxda Manchester United ayaa diyaar u ah inay dhaqaale ka helaan iibka laacibkooda Yangel Herrera xilli ciyaareedkan 23 jirkan qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda Granada xilli ciyaareedkii hore isagoo soo jiitay koox ay ka mid tahay Southampton laacibkan awood badan ayaa waxa dalabkiisa ku raad joogan kooxaha kale ah West Ham Leeds United xagaagan Manchester City ayaa doonaysa inay xidigan ku helaan adduun dhan 20 milyan ciyaaryahanka ka soo jeeda dalka Venezuela Yangel Herrera ayaa laga yaabaa inuu fursad u kooxdiisa xilli ciyaareedkan laakiin hamigiisa kooxda waa wali ku taagan burburiyaha kooxda ee Fernandinho Liverpool wax horumar kamay sameyn wada hadalka Henderson qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed kooxda Liverpool ayaa wax horumar ah ka sameyn wada hadalada ay kula jirto xidigeeda Jordan Henderson ee ku saabsan heshiiska kordhintiisa Henderson ayaa qandaraaska kooxeed waxa uu ka dhacay sanadka 2023 laakiin milkiilayaasha kooxda ayaa miisaamaya dhaqaalaha kooxda wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laacibkan ka tirsan kooxda Liverpool ee Henderson uu dalabyo ka helayo kooxaha aan la shaacin magacyadooda iyo horyaalada ay ka ciyaaraan laakiin kooxaha Paris Saint-Germain iyo Athletic Madrid ayaa loo maleynayaa inay ilgaar ku hayaan mustaqbalka Jordan Henderson Madrid oo diiday Joe Felix qodobkaasi waxay noo eegaysaa Muna Cismaan saraakiisha kooxda Athletic Madrid ayaa diidan inay dhageystaan dalabyada lagu doonayo Joe Felix xilli ciyaareedkan laacibka reer Portugal ayaa noqon kara xidiga ugu dhaqaaqaya garoonka Camp Nou si uu bedelo Antoine Griezmann laakiin xidigan Joe Felix ayaa hore loola xiriirinaya kooxaha ugu sareeya horyaalka Premier League ma jiraan qorshe ay xilligan ee kooxda Athletic Madrid ku fasaxaysa laacibkeeda Felix xagaagan Joao Felix ayaa ku dhibaatooday xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda kadib markii uu soo caga dhigtay sanadkii 2019 Athletic Madrid ayaa doonaysa inay Felix uu sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda intaas ayaan ku soo gabagabeynay wararka ciyaaraha Bulsha Sports waa anigu Xasan Cumar Xuseen sidaas iyo nabadgeliyo